kulanti habboon daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee TV-ga Hiiraaweyn qodobada aan idinku hayana waxaa kamid ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee danab iyo kuwa maamulka Jubbaland oo horgal qorsheysan ka fuliyay deegaano ka tirsan maamulkaasi ururka shanaad guutada 16aad ee kumaandoosta danab ee xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka madaxtooyada Jubbaland ayaa horgal qorsheysan ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ciidamada ayaa horgalka si gaar ah uga fuliyay inta u dhaxaysa deegaanada Cabdalla Biroole iyo Buule Xaaji ee galbeedka magaalada Kismaayo halkaas oo mararka qaar ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeyaan xubno ka tirsan Al-Shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka madaxtooyada Jubbaland ayaa waxay sheegeen in howlgalka uu ka dambeeyay kadib khayladaan uga timid dadka shacabka ah oo ka cabanaya in Al-Shabaab ay ka qaadayaan xoolo ay ku sheegeen sakawaad iyo lacag fara badan ciidamada ayaa intii ay howlgalka ku jireen waxa ay hamiinooyin dhowr ah ka soo saareen wadada xiriirisa deegaanada Cabdalla Biroole iyo Buule Xaaji halkaas oo dhowr jeer ay ka dhaceen qaraxyo ay ku waxyeeloobeen askar iyo dad shacab ah howlgalkan ayaa si wada jir ah u sameeyeen ciidamada kumaandoosta danab iyo kuwa madaxtooyada Jubbaland waxaana ku soo beegmaya xilli magaalada Kismaayo ay ka socoto doorashada qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Imaaraadka Carabta kala wareegtay gargaar loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha ee dalka dawladda Imaaraadka Carabta ayaa diyaarad siday agab gargaar ah oo loogu talagalay dadka ay saameysay abaarta ka soo hodajisay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ay horkacayso wasiirka gargaarka maareynta iyo masiibooyinka Khadiija Maxamed Deeriya ayaa tagay garoonka diyaaradaha aadan cadde iyagoo halkaasi kula wareegay deeqdii ka timid dalka Imaaraadka Carabta wasiirka gargaarka maareynta iyo masiibooyinka Khadiija Deeriya ayaa uga mahad celisay gurmadka gargaarka ah oo ay soo gaarsiisay Soomaaliya dawladda Imaaraadka Carabta iyadoo sheegtay inay ku soo beegtay xilli loo baahnaa waxa ay hadalkeeda intaasi ku dartay in wali dalka meelo badan oo kamid ah ay ka jirto abaarta waxayna ugu baaqday cid kasta oo caawin karta Soomaaliya gudaha iyo dibaddaba inay gurmad hala soo gaaraan waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha aadan Cabdulla Cismaan waxaan halkan ku gudoomay saakay ka wasiir gargaar ahaan iyo guddiga abaaraha dawladda sahaydii labaad diyaaradii labaad oo na soo gaartay wadanka walaalaheen Imaaraadka Carabta wafdiga uu hogaaminayo walaalkeen Maxamed Kacbi bisha cas ee Imaaraadka iyo safaaradda Soomaaliya u joogta dalka Imaaraadka dhammaan dawladda Imaaraadka iyo shacabka Imaaraadka waxaan uga mahad celinaynaa xaaladan adag ee ummadda Soomaaliyeed ay wajahayso xilli abaaro daran oo dalka uu ku jiro xaalad bini aadanimo oo degdeg ah waxaana ku dhawaaqay mar labaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble marka waa uga mahad celinaynaa Soomaaliya markan xaaladahan ay ku jirto dadka way ka jeceshahay cidii u dhagan nuglaata baaqyada dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay dirayso walaalaheen Imaaraadkana waa markii labaad ay hadda diyaarad sahay gargaar wada oo raashin ah in soo gaarsiiyeen marka waxaan leeyahay intii noo gargaartay Ilaahay ha u gargaaro wali waa taagan yahay baaqi wali waa taagan tahay xaaladii adkeyd waliba xilli adag oo dalka doorasho uu ku jiro ay dadka waxyaabo fara badan aysan fursad u helaynin marka ummadda Soomaaliyeed inta gudaha joogtay inta dibadda joogtana waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inay isu gargaaraan dawladda dadaalkeedana in loo dhagan nugulaado saaxiibada Soomaaliyana waxaan ka rajaynaynaa inay xilligan adagna garab istaagaan dawladda Imaaraadka mar kale waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin dadaalkooda fara badan gaar ahaan maanta ra'iisul wafd Imaaraat Aqi Aziz Maxamed Tabi waa deeqdii labaad oo dawladda Imaaraadka Carabta ay keentay Soomaaliya waxaana 7 bishii la soo dhaafay ee Janaayo Imaaraadka Carabta ay Muqdisho keentay deeq gargaar ah iyadoo xilligaas ra'iisul wasaare Rooble
uu sheegay in Imaaraadka loo celinayo lacagtii garoonka aadan cadde loogala wareegay sanadkii 2018. Qarax khasaare geysay ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee Midowga Afrika ee AMISOM. Ilaa 2 qarax ayaa ciidamada ka tirsan kuwa Kenya ee howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM waxaa lagula eegtay aagga deegaanka Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose. Qaraxyada oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa gaadiid ay saarnaayeen ciidamada Kenya oo biyo dhaamin ugu socday deegaanka Kamboni lala beegsaday, waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in qaraxyada ay ku dhaawacmeen ilaa 5 askari. Qaraxyada kadib ciidamada Kenya ayaa furay rasaas fara badan, taas oo aan wax khasaare ah u geysan dadka shacabka ah, waxaana la sheegay in ciidamada Kenya ay sii wateen socdaalkooda. Al-Shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadaas ayaa sheegtay inay hogubeen mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Kenya, ha yeeshee waxaan weli qaraxyada ka hadlin saraakiisha ciidamada Kenya ee ka howlgala gobolada Jubbada Hoose. Ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM ee ka howlgala gobolada Jubbooyinka ayaa mararka qaar lala eegtaa qaraxyada halka dhankooda ay fuliyaan howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab iyaga oo deegaano dhowr ah kala wareegay. Wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka ayaa maanta gargaar soo gaarsiisay degmada Buloburde ee gobolka Hiiraan. Wafdi ay hogaaminayso wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Soomaaliya Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaa gargaar degmada Buloburde ee gobolka Hiiraan soo gaarsiiyay, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada dowladda. Xildhibaan Khadiija iyo mas'uuliyiinta la socday ayaa loo gudbiyay gudaha degmada Buloburde, waxaana kulan soo dhaweyn ah u sameeyay maamulka degmada Buloburde. Maamulka degmada Buloburde ayaa wasiirka gargaarka Soomaaliya ugu warbixiyay xaaladda magaalada Buloburde, gaar ahaan abaaraha iyo biyo la'aanta dadka deegaanka ku haysato magaaladaasi. Wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in ay wax ka qaban doonto xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta degmada Buloburde oo ah magaalo go'doon ku jirta muddo 10 sano ku dhow. Qodobadii gudaha ayaa daawateen, dibaddana waxaa kugu hayaa dad gaaraya 160 qof oo lagu dilay gobol ka tirsan dalka Itoobiya. Maamulka gobolka Oromada ee dalka Itoobiya ayaa ku eedeeyay koox fallaaga ah inay dileen in ka badan 160 qof oo rayid ah, isla markaana 87 meyd ay ku aaseen xabaal wadareedyo ku yaala galbeedka gobolka. Ciidamada xoreynta Oromada ee magacooda loo soo gaabiyo OLA oo inta badan ay dowladdu ku eedeyso inay ka dambeeyaan dilalka loo geysanayo dadka laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka ayaa ka jawaabin eedeymahan u dambeeyay. Ururka ayaa horey u beeniyay in ay weerareen dad rayid ah, sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka galbeedka Oromiya Ibsa Bash ayaana sheegay in meydadka laga helay degmada Gidami kadib markii ciidamada dowladda ay markaasi jabhadda ka saareen deegaanadii ay maamulayeen. Ururkan loo soo gaabiyo OLA oo sanadkii hore isbahaysi la sameystay ciidamada Tigray ee dagaalka kula jira maamulka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa ka howlgala galbeedka iyo koonfurta gobolka Oromiya, halkaas oo dhawaanahan ay ka dhacayeen isku horimaadyo dhexmaray ciidamada dowladda iyo fallaagada. Weerarada ay dowladdu ku qaaday kooxda ayaa lagu soo waramayaa inay ka qayb qaateen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Warbixinta dilka lagu eedeeyay kooxda ayaa dhalisay carad dadweyne oo dhanka baraha bulshada ah. Inta ayuu ku dhan yahay warkii koobnaa, intaynu ku kulmi doono warkan kiis xiga, sidaas iyo nabadgelyo.